hogaamiyaha mucaaradka ugu tunka weyn waddankaasi Zimbabwe ayaa diiday in taageerayaashiisa uu ku dhiirigeliyay inay dhigaan mudaharaadkii rabshadaha watay ee doorashada kadib dhacay kuwaasoo horseeday in 6 ruux ay dhintaan bishii Agoosto. hogaamiyaha mucaaradka waddankaasi Zimbabwe Nelson Chamisa ayaa madaxweyne Emerson ku dhaliilay go'aanka uu militariga ku adeegsaday si ay rabshadaha u joojiyaan. 7 ruux oo baadhitaan ku sameynaya arrintaas ayaana bishii Sebtembar la magacaabay si ay baadhitaan ugu sameeyaan dilkaasi. Nelson Chamisa ayaa sheegay in xisbiga uu hogaamiyo uusan ku baaqin dibadbaxyo kuwoodii bishii 8aad ee sanadkan, waxaana sidoo kale uu sheegay in 6 qof ee ka mid ahaa dadkii la toogtay aanay xubin ka ahayn xisbigiisa. xisbiga MDC ayaa ugu baaqay guddiga baaritaanka sameynaya oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika in ay xaqiiqda dhabta ah ka salgaaraan, waxaana uu yiri cid doonaysa ma jirto inay qaadato mas'uuliyadda wixii maalinkaas ku dhacay. taliyaha ciidamada waddanka Zimbabwe ayaa sidoo kale isaguna qirtay in askarta ay rasaas fureen, balse waxa uu meesha ka saaray in dibadbaxayaasha ay bartilmaameedsanayeen. Ce n'est pas normal ça, vraiment. mudaharaadada ayaa dhacay kadib markii guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqeen in madaxweyne Emerson uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalkaasi dhamaadkii bishii 7aad. doorashadii ka dhacday dalkaasi oo ahayd midii ugu horeysay ee uusan ka qayb galin madaxweynihii muddada dheer soo maamulayay dalkaasi ee lagu magacaabo Robert Mugabe ayaa rabshadihii ka dhacay waxa ku dhintay dhowr qof. Saciid Axmed Tamreise, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star.